wasaaradda hawlaha guud guriyeenta iyo dhulka ayaa maanta barnaamijka tirakoobka iyo diiwaangelinta hantida maguurtada ay ka waday guud ahaanba Soomaaliland waxay maanta si rasmi uga bilowday magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar waxaana hawshaasi fulinaya tiim ka socda wasaaradda hawlaha guud guriyeenta iyo dhulka ugu horeynbana munaasabad ay ku daahfurayaan diiwaangelinta hantida maguurtada ee qaranka ayaa waxay ku qabteen xafiiska barasaabka gobolka Saraar waxaana halkaas ka soo qayb galay maamulka gobolka Saraar ka degmada Caynaba iyo mas'uuliyiinta wasaaradda hawlaha guud guriyeenta iyo dhulka ee gobolka Saraar ugu horeynbana waxa halkaas ka hadlay injineer Sakariye Cabdullaahi Cumar oo ah madaxa tiimka hawshaasi fulinaya waxaanu ka warbixiyay habka iyo hanaanka ay hawshaasi u fulinayaan mudane gudoomiye waxaan saaka ka bilaabi doonaa magaalada Caynaba iyo guud ahaan gobolka Saraar diiwaangelinta hantida maguurtada ee dawladda oo maalinteedii sabtida ka bilaabantay kowdii bisha madaxweynaha Soomaaliya wasiirka wasaaradda hawlaha guud ay bilaabeen daafurkiisa saaka way toos uga bilaabi doonto magaalada Caynaba iyo guud ahaan gobolka Saraar mashruuca waxa lagu diiwaangelin doonaa programyo software ah oo daatadiisu ay taalo magaalada Hargeysa iyo GPS-yadaas mar alaala markaan naqaano Soomaaliland waxa ka bilaabi doonaa in xarunta gobolka Saraar markaan diiwaangelino waxa laga arki doonaa server yaalo wasaaradda hawlaha guud guud ahaan xarumaha waxbarashada xarumaha caafimaadka iyo guud ahaan xarumaha dawliga oo dhan ay tiimkan waxa u saaray inay diiwaangeliyaan wada shaqeyn maamulka dalban maalin gudoomiye adag iyo maayarka iyo guud ahaanba tiimka gobolka aad u mahadsantahay sidoo kale waxa halkaas isaguna ka hadlay barasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi maayarka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf iyo suudiyaha wasaaradda hawlaha guud guriyeenta iyo dhulka ee gobolka Saraar Axmed Cawil Maxamed oo ku magac dheer Daryaal waxayna ka warameen muhiimadda ay hawshan leedahay waxayna sidoo kale tiimka hawshaasi fulinaya u ballan qaadeen inay kala shaqeyn doonaan sidii si habsami ah ay ugu fuli lahayd hawsha diiwaangelinta hantida maguurtada ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka dhisan guud ahaanba gobolka Saraar tiimkii shaqeynaya waa kana xagga la saaka ka yimid waxaan doonaynaa inuu ka bilowno haddii Ilaahay inoo ogolaado gobolka inuu ka bilowno inaguna diiwaangelintii dhulka danta guud iyo dhismayaasha dawladda taas oo tiimkan diyaar u yahay meeshii masaajid ka dhisan yahay haddii sabtiga ay dhowdo in istaago oo soo qaado sawirkiisa soo diiwaangeliyo annagu diyaar baan nahay idinkana waan soo dhaweynaad iyo soo dhaweynaa wixii hantida ummadana in la diiwaangeliyo oo la kala soco hantida shakhsiga iyo hantida qaranka leeyahay ummadda oo ka dhaxeeya oo wanaagsan tahay taana aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa in xogta buurada ah ee la helo ummaddu leedahay ee dadka ka dhaxeeya marka waan soo dhaweynaynaa wixii dambana dacfiyo weyn ka qaadanay marka hore gobolkan ku soo dhawaada idin leeyahay marka labaadna waxa weeye waa idin la shaqeynaynaa shaqaalaha hawlaha guud halkan idin jooga iyo shaqaalaha kale dawliga ah haday maayir tahay iyo aniga gudoomiyahan haday tahay cid walba waad kaashanaysaan oo idin la shaqeynaynaa ku soo dhawaada inaan idin diiwaangelino arrin aad muhiim ah waad wadaan jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba